السلام عليكم. عليكم السلام. مقعد صاحب. waxaa la yiraahdaa Cabdi Casiis waxaan ku magac dheerahay baroon oo dhex jooga dhagax buur. Haye. Maxaad ka hadlaysaa maanta? Maanta waxaan ka hadlayaa aan dhiirigelinayaa ama aan waaninayaa ama aan wacyigelin sheegayaa dadka reer Jarareed gaar ahaan magaalada dhagax buur. Haye. waxa weeye inta dhagax buur dhex joogay waxyaalo badan oo iyagu dib ah oo ay ku hayaan baanay magaaladooda. Haye. intay horumarin lahaayeen magaaladooda ayaa waxay tahay in magaalada lagu soo qaato qandaraasyar yar oo gaaban oo ugu sawiraan oo waxba la sameeyeen waxaa kamid ah xaafadda toddobaad wadada tagta madaxweynaha dowladda deegaanka ku talinay 3 jeer baa lagu qaatay qandaraas lamana sameeynin xaafadaha waxay arkaysaa 1 kiiloomitir oo qandaraas lagu qaadanayo waa la sameeyeen meeshay magaaladooda iyagu qurxin lahaayeen ay dhala ka dhigi lahaayeen ay horumarin lahaayeen ay magaalada kale soo tartaynayeen ay ka dhigi lahaayeen ayaa waxay ku sameeyaan magaaladii in ugu sawir ay ragacad ku qaataan oo waxba ay waxeen ana oran lahaa dadka qandaraasada la siinayo hal ugu dabagalo beeda gasbuurowna wardidu isu sax oo magaaladiina qurxista oo lacagta aad qaadanaysaan sida aad qandaraas ku qaateen u fuliya صح قدراسك dadka la siin lahaa sharci ahaan waa qadaraaska 3 qof oo ogolayn horta inay heshiiyaan baa ku heshiiya waa ninka qadaraaska soo qaatay waa kii ku dabagal lahaa ka daroolaya iyo kii soo qaatay saddexdan baa heshiinaya lacagtuna waa la kala goosanaya waxna lama qabto cid ku dabagali lahaydna waaba tan heshiisay saamle waxyaalaha noocaas oo kala xukuumadda Mustafa Maxamed Umar waa inay inda gaar ku hayso dadka ay qandaraasyada siiso saddexdan nin oo loogu talagalay heshiiyaan baa heshiiya wixina waa la kala goostaa shaqadina lama qabto intaas oo meelood baan ku hayaa magaalada dhagax buur anigu inta dhagax buur aan u sheegay waa inta aadna waan salaamaya ciid mubaarak